سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواذا برنامج كن اللياب كالدنيا ودن وليبا عالم كمدا وحو دقنهان وليهي حلقة جوركا دقمات وكلا دوان isla markaana aad la yaabayso la yaabka dunida deeqiini official subscribe saar like sana oh my god wadan walba oo caalamka kamid ah waxa uu leeyahay dhaqan u gooniya hadaba aan ku bilaawne dhaqamada aadka u xun ee lagu dhaqmo wadanka Mareykanka jasiirada Greenland waqooyiga Mareykanka dadka daga reer miyiga waxay dhaqan ahaan u leeyihiin in gabadha caruusada ah ninka uu jiido timaha ilaa uu ka geynayo guriga uu guursanayo dadkana ay aad u daawanayaan qabiilka jecel ee dalka Suudaan waxay dhaqan u leeyihiin in wiilka caruuska ay garaacaan gabadha walaalkeed iyo aabaheed jeedal ayaa la dhacayaa hadii uu xanuunsadana uma qalmo ayaa la leeyahay gabadhaas dhaqankaas waa dhaqan soo jireen ah ay soo sameeyeen wadaado hore ee ka soo jeeda dalka koonfurta Mareykanka waxay dhaqan ahaan u leeyihiin in wiilka caruuska ah 7 maalin ka hor uu xado digaagad aad u fara badan oo kadibna uu digaagada madaxeeda cuno lugaheedana uu ku firaasho sariirta gabadha uu guursanayo Scotland dhaqamada ay leeyihiin waxa kamid ah in gabadha waxyaabo qurmoon inta la mariyo magaalada dhanna lagu soo wareejiyo si dadka dhan ay u arkaan caruusadaas wadanka Shiinaha waxa dhaqan ahaan ka jiro in gabadha muddo bil ah ay oyso kadibna hooyadeed ay 10 maalmood kadib ay ku soo biirto ayadeedna 20 maalmood kadib ay ooyinta ku soo biirto kadib gabi ahaan gabdhaha gurigaasi joogo dhan ayaa wada ooynaya taasina waxay ka dhigan tahay in gabadha loogu dirayo hambaliyo arooskeeda gabdhaha caalamka waxay jecel yihiin in ay caato iyagoo la guursado laakiin wadanka Mauritania waa uu ka duwan yahay caalamka kale waxay jecel yihiin in iyagoo buuran la guursado waayo ragga wadankaas ayaa xiiseeya gabdhaha burbuuran oo gabar caata ah lama guursanayo dhaqankaas ayayna leeyihiin wadankaas Punjab iyo wadanka Hindiya waxay dhaqan ahaan u leeyihiin dhaqan soo jireen ah kaas oo gabadha ay guursan karto 5 nin iyo ka badan deetana ilmaha ay gabadhaas dhasho mid koowaad waxa yeelanaya ninka da ahaan ugu weyn nimanka guursaday kadibna sidaas ayay ilmaha u qaybsanayaan ninka uu ka weyn yahay qabiilka sarna ee wadanka Itoobiya waxay dhaqan ahaan u leeyihiin gabadha marka ay yar tahay in faruurteeda la geliyo caag wareegsan markasta ay sii weynaatana la sii weyneynayo markaasi wiilka soo doonta ee guur ahaan ka dalbada in uu bixinayo dhaqaale aad u fara badan kaas oo laga qiyaas qaadanayo hadba inta ay la eg tahay faruuraheeda caaga ku jira oh my god waad ku mahadsantiin la socodkiina like ta commentiga subscribe tana waa dhankiina mahadsanidin